maxaa ka dhexeeya dalalka Djibouti iyo Soomaaliya? 20 sano u dambeeyay xiriir noocee ayaa ka dhexeeya Soomaaliya iyo Djibouti. door intee leeg ayay dawladda Djibouti ku lahayd dhismaha qaran Soomaaliyeed oo taabagal ah? jawaabaha su'aalahan waxaynu wax badan kaga ogaan doonaa inta aynu ku guda jirno warbixintan oo aynu diiradda ku saarayno xiriirka qotada dheer ee derisnimo, Soomaalinimo iyo walaalnimo ee ka dhexeeya labadaasi dal. taariikh ahaan marka aynu dib ugu noqono kadib afkambigii Maxamed Siyaad Barre 1991 labadii shir ugu horeeyay dib u heshiisiinada loogana gol lahaa in dib loogu unko dawlad Soomaaliyeed ayaa waxay ka dhaceen dalka Djibouti bilihii Juun iyo Julaay 1991 iyo shirweynihii Carta shirkaas oo ahaa kulan isdaba jooga oo lagu qabtay magaalada Carta ee dalka Djibouti intii u dhaxaysay 20kii bishii Abriil iyo 5tii May sanadkii 2000. ujeedada kaliya ee dawladda Djibouti ka lahayd igleelka shirarkaasi iyo martigelintoodu waxay ahaayeen mid ay u arkayeen waajibaadkii saarnaa walaalahooda ummadda Soomaaliyeed ay ku gacan qabanayeen waxaana ka dhashay guulo wax ku ool ah oo la taaban karo oo aanay ka musuugi karin mahadhooyinka taariikhda maguurtada ahi. ku soo dhawaada Carta, ku soo dhawaada Buurta Ugul, ku soo dhawaada wadankiinii labaad Jamhuuriyadda Djibouti. dawladda iyo shacbiga reer Djibouti eed walaalaha tihiin oo gogoshan idin fidiyay si aad u wada tashataan una wada go'aansataan dib u dhiska qarankii Soomaaliyeed ee burburay. dhammaan ummadda reer Djibouti waxay heegan u tahay adeegiina ayagana mahad ballaadhan ayaan u celinayaa. marka hore aniga oo ku hadlaya magaca dawladda dadweynaha Djibouti iyo magacaygaba aan idhaahdo soo dhawaada walaalayaal, ku soo dhawaada gogol nabadeed, ku soo dhawaada wadankiinii labaad. farxad weyn ayay ii tahay inaan idin furo shirweynahan taariikhiga ah, shirweynahaas oo lagu tilmaami karo kala baydh taariikheed, astaan ididilo oo beddeshay quus iyo xanuun sannado badan ku habsaday ummadda Soomaaliyeed. laga soo bilaabo shirarkaasi ugu horeeyay ee lagu unkayay nabad waarta oo ka hana qaada Soomaaliya waxay dawladda Djibouti sidoo kale gacan mugle ka qaadatay kuna ammaaneen beesha caalamka iyo hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa Afrikaba doorka derisnimo ee mid dhaqaale iyo mid fikirba ay waqtiga u gelisay nabadda Soomaaliya. waxaana qodobadii ugu muhiimsanaa shirarkaasi ka soo baxay aynu ka soo qaadan karnaa qodobadii ay kamid ahaayeen igleelka dawlad federaal oo loo dhan yahay oo ay kamid tahay maanta xukuumadda hoggaanka u haysa iyo sidii loo hirgelin lahaa ciidamo kala duwan oo nabad ilaalin ah oo ka socda dalalka saaxiibka la ah dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay hormood u ahayd dawladda Djibouti isla markaana qaramada midoobay laga codsaday in la keeno ciidamo nabad ilaalin ah oo ka qayb qaata xasilinta amniga shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatada baaxadda leh ay ku hayaan kooxaha nabadiidka ah ee ka soo horjeeda dawladda Soomaaliyeed. intaa wixii ka dambeeyay xukuumadihii kala dambeeyay hoggaanka u soo qabtay Soomaaliya ama saddexdii madaxweyne ugu dambeeyay dawladda Djibouti mar walba waxay la barbar taagneed hiil iyo hoow walaalnimo sidii ay mar walba u muujin lahayd inay tahay Djibouti garab ka mid ah oo jecel shacab Soomaaliyeed oo horumar gaadha. taasina waa ta keentay in madaxweyne kasta oo yimaada talada ummadda Soomaaliyeed hoggaan u noqda in dawladda Djibouti ay ku soo dhaweyso meeqaam sare isla markaana ay u fidiso gacan walaalnimo kana caawiso hiil iyo hoob wax kasta oo kaga xidhmo markaasi. waxaana taa markhaati cad u ah madaxdii kala duwaneed soo qabtay hoggaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay kamid yihiin kuwa hadda ka taliya iyo bulshada inta garaadka u saaxiibka ayaa qiraya Djibouti iyo
halka ay ka taagan tahay ummad Soomaaliyeed oo iskeed u istaagta isla markaana hesha xasilooni nabad waarta iyo deris wanaaga. aynu ku bilowno madaxweyne Sheekh Shariif iyo Sheekh Axmed iyo xukuumadii uu garwadeenka ka ahaa door intee lag iyo xidhiidh noocyo ayaa ka dhaxeeyay. tilaabada koowaad ay qaadayso Jamhuuriyadda Djibouti waa tilaabo isdabayaal ah oo hogaaminaya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle sidii Soomaaliya loo gaari lahaa nabad. ma aha mid lama filaan waa mid laga filaayay waxaana shaki ku jirin dadaalkaas isdaba joogga ah inuu Soomaaliya gaarsiin doono nabadgelyo iyo inay ku soo laabato meeshii ay ka joogi jirtay adduunka. waxaa lagu guuleystay in tababaro kala duwan ay ku soo qaataan meelo kala duwan ha noqdaan tababaro ciidan iyo mid saraakiileed. kanina wuxuu ka yahay qayb muhiimadda gaarka uu leeyahay waxay tahay luqada tababarka ayaa ah luqa mubaashir ah maadaama aan nahay isku luqo waxay fududaynaysaa askariga carbintiisa inuu degdeg u fahmo duruusta uu qaadanayo. taasna waxay door weyn ka qaadan doontaa marka uu gudanayo waajibkiisii in uu u guto si faham iyo cilmi ku dhisan. waxaan rabaa inaan jaleeco bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala bacd. madaxweynaha waxaan ka wada hadalnay xaaladda Soomaaliya iyo sida loogu baahan yahay in lagu dardargeliyo xaaladda amniga iyo mataqaan gargaarka bani aadamnimo iyo dib u dhiska dalka. runtii aadaan isula garanay in arrintaas ay waajib muqadas tahay inaan maxay ahaato laga gaabin. rajadeeduna waxay tahay in wax badan ay hagaagaan. aynu ku xigsiina madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadii uu hogaaminayay sidee buu ahaa cilaaqaadka siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid walaaltinimo ee ka dhaxeeyay. ku mahad celinayna wixii aad hore u soo qabatay dhaqankaaga mahad celinayna waxa aad maanta nala garab taagan tahay kaaga mahad celinayna. Soomaaliya iyo Djibouti kama abaal dhici doonto mustaqbalka haddii aad yiraahdo. safarkii ugu horeeyay ee si rasmi ah aan dalka uga soo baxo oo aan boqosho rasmi ah dibadda ku imaaday inaan ka bilaabo Djibouti. arrintaasi micnayaal badan iyo qiimi badan ay anaga noogu fadhidaa. micnayaal qiimaha ugu weyn ee noogu fadhida waxay tahay marka hore inaan dowladda iyo madaxweynaha iyo dadka reer Djibouti aan la wadaagno oo aan u muujino abaalka aan u tirinayna in ay noo galeen. dee waa uun sheegaynaa moogiye ma gudi karayno marka inaan dhahno waa mahadsantihiin maadaama dowladdii ay ku meel gaarka ka baxday oo hadda dowlad rasmi ay tahay inaan dhahno waa mahadsantihiin waxay ahayd ujeedada ugu weyneed ugu horeysay. midda labaadna waxay ahayday madaxweynaha iyo dowladda Djibouti inaan la wadaagno muddadii gaabneed ee dowladdani ay jirtay wixii noo qabsoomay iyo wixii caqabad ah naga hor yimiday si aan talada iyo waayo aragnimadiisa madaxweynahana aan ula wadaagno. furitaankeedu wuxuu ahaa dib u habeynta iyo dayactirka muxuu ahaa dowladda Djibouti ay noogu deeqday oo ay ku samaysay ayaan dib u furno xarig uga goynay laakiin safaaradu way shaqaynaysay. waana joogeen mumthiliinta dalka halkan muddo dheer ilaa intii 22 sano dawlad la'aanta Soomaaliya ka jirtaba way joogeen. laakiin haatan dayactirka iyo dib u habeynta dowladda Djibouti ay nagu kaalmaysay oo la dayactiray oo dib loo habeeyay furitaankeedii ay ahayd aniga maanta waxaan sameeyay. marka soo dhaweynta iyo maxaan ku raadayay muqaabalada iyo farxadda dadka reer Djibouti oo dhan ay noo hayaan waan ka mahad celinaa idina aad u mahadsantiin. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha hadda talada haya ee dowladda federaalka ee Soomaaliya isna wuxuu ka yidhi xiriirka Djibouti iyo Soomaaliya ka dhaxeeya. bismillaahir rahmaanir rahiim. horta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay soo dhaweynta wanaagsan ee walaalkay Ismaaciil Cumar Geelle uu soo dhaweeyay iyo dadka reer Djibouti. waa gurigeyga labaad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. safarkaygu wuxuu qayb ka yahay safaradii aan ku soo maray dowladaha ciidamada Soomaaliya ka joogaan si aan uga raadino taageero macaawino dhan walbaba ah si aan qolooyinka nabadiidka ay shabaabka ah ee argagixisada ah ee aan isaga celino. maanta waa maalin taariikh ah waa maalin weyn oo aan markhaati kulligan u nahay furitaanka free trade zone-ka
africa ugu weyn alxamdulilah inay noqoto jabuuti waxa weeye waa waxa keliya oo aan isleeyahay keeni kara nabad iyo barwaaqo iyo deganaansho xasilooni siyaasadeed waxay tahay inuu dhaqaalaha isdhex galo oo uu dhaco economic integration maalintan aan joogno ma aha waxaan arkayno wax accidenti ah wax shil ah ma aha waa wax galay waqti badan iyo shaqo badan iyo vision iyo hoggaan wanaagsan oo walaalkeen Ismaaciil Cumar Geele ah taas oo iyadana ku timid wada shaqayn guud ahaan dadka reer Jabuuti oo hoggaankooda wanaagsan si maaragtay u daba socda oo ula shaqeeya waxaan arkaynaa in ummadda reer Jabuuti ay diyaar u tahay horumarka dhaqaale oo kulligan ku taaminayno inay ka dhacdo geesta Afrika oo xaqiiqatan ka turjumaysa xiriirka labada dal iyo labada dad oo waalaha ah xiriirkaas taariikhiga ah aan leenahay iyo xiriirka gaarka aan leenahay waxa weeye xiriir bulsho xiriir dad iyo dad ah maxaan ku raahdaa xiriir amni inaan xoojinno iskaashiga haddii noqoto dhanka dhaqaalaha iyo wax wada qabsiga arrinta ugu muhiimsan iskaashiga arrimaha amniga iyo la dagaalanka qolooyinkan argagixisada ah oo runtii maalin walba ummadda Soomaaliyeed oo waxba galabsan si arxan darro ah u leynaya u burburinaya hantida waxaan aad iyo aad runtii kaaga mahadcelinayaa leadershipkaaga hoggaankaaga oo aad qayb uga tahay la dagaalanka argagixisada oo aad nagu soo biirisay ciidan tayo leh oo hiil walaal la yiraahdo oo naftooda u huraya difaaca dalkan iyo dadkooda xaqiiqatanna waxaan iloobi karna ma aha inta Jabuuti iyo hoggaankaaga uu u taray dalkan insha Allah waxaan rajeynayaa in iskaashigaas aan sheegay oo dhinac walba taabanaya waa hadalkeena maanta iyo biri inay noqdaan wax miro dhala oo wax weyn ay ka soo baxaan waa maasanta madaxweyne soo dhawow inaan naga ogolaataan inaan idin soo gaarsiino fariin aan dadweynaheennii ka sidno oo yani rajo iyo hambalyo iyo yani dhiirigelin aan idin sidno nabad iyo walaalnimo iyo iskaashina raacino nabaddu inaan ka wada shaqayno in aanan ninba waxay uu karayo uu ku kordhiyo in walaalnimada aan ficlan aan noolayno ama aan ku dabaqno nolosha caadiga ee dadkeenna dadweynaheenu waxa uu jecel yahay inaan iskaashiga aan sii biirino waxa uu jecel yahay inaan wadaagno dhib iyo dheefba waxa uu jecel yahay inaan isku duubnaano annaguna waxaan fulinaynaa waxa uu dadweynaheenu leeyahay waxa aan jecelnahay in aan aragno yani Soomaaliya oo qayrkeed intaa ay daahday in ka badan inay qayrkeed dhaafto in ay soo ceshato sharafteedii iyo karaamadeedii iyo raganimadeedii in ay annagu waxaan ka dhiganaynaa wehel baan ka dhiganaynaa Soomaaliya
dhinaca taageerada dowladda Jabuuti iyadoo mar walba ka shidaal qaadanaysa wacyiga iyo duruufaha la soo darso ummadda Soomaaliyeed waxaan la soo koobi karin mid dhaqaale iyo mid taakulo ay waqtiyadii kala duwanaya abaaraha iyo masiibooyinka fatahaadaha webiyaha ay ku caawiyeen walaalahooda Soomaaliyeed kuwaas oo aynu ka soo qaadan karno ama ka xusi karno mid iyo laba taas oo ay ka mid ahaayeen tii dhaqaale ay ugu deeqeen shacabkii ku fatahay webi iyo diyaarado kala dambeeyay oo u siday raashin iyo agabka gurmadka iyo samata bixinta dadkii ay duruufaha kala duwan ay la soo habsadeen aad iyo aad ay maaragtay noo taabatay dhibaatadaasi waxaan jecelnahay inaan la wadaagno walaalahayo horeyna dabcan dhakhtarro waa u soo dirnay oo waa ka qayb galeen maaragtay daaweyntii dadkii ku dhibaatooday dabadeed account-yadii laga furay baananka Jabuuti dadku wixii ay ku rideen ayay dawladda Jabuuti u dhiibeen dawladduna waxay ku soo hagaajisay safaaradda anagana maanta waxa sharaf noo ah inaan ku wareejino guddigii u qaabilsanaa maaragtay taakulaynta iyo taageerada marka waxaan leenahay shacabka Jabuuti intaas inaad sameysaan iyo in ka badanba waxaa keenaysa waxaynu sunnaha keenaysa aad baadna u mahadsantihiin ilaahay ha idin barakeeyo iyo hoggaanka wanaagsan amnigiina ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu amni idin siiyo horumar iyo nolol wanaagsan idin siiyo annagana insha Allah dhibaatada Allah naga bixiyo marka mudane safir aad baad u mahadsan tahay amaanadii lagu soo dhiibana waad gudatay waad bixisay waana ka guddoonay waad mahadsantahay gurmadka horena way noo soo gudubmadeen haddana way noo yimaadeen iyagoo waliba shacabka reer Jabuuti ay dhaqaale iska soo ururiyaan waa idinka anigoo ku hadlaya magaca dawladda iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan waan idinkaga mahad celinaya walaalnimada aad nala garab taagantihiin mar walbana waad ku mahadsantihiin wajigii labaad ee ka qayb qaadashada gurmadka loo fidinayo dadkii ay saameeyeen fatahaadaha webiyada dalka gaar ahaan magaalada Beledweyne ayay diyaaradan dawladda aan walaalahanahay ee Jabuuti uga soo degtay garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho diyaaradan ayaa siday gargaar isugu jira joodariyaal marakaneecooyin iyo teendhooyin loogu talagalay inay hoy ka sameystaan maadaama ay ka barakaceen guryahooda safiirka dawladda jamhuuriyadda Jabuuti ee u fadhiya Soomaaliya danjire aadan xasan aadan oo ku wareejiyay guddiga qaran ee gurmadka fatahaadaha ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Jabuuti ay yihiin walaalo isla markaana ay ka qayb qaadanayaan dhibaato walba oo soo wajahda dadka Soomaaliyeed waxaan mar kale maaragtaan idinku wareejinaynaa iyadoo ay farxad noo tahay inaan ummadda reer Jabuuti oo madaxweynaha ugu horeeyay ka gudoono hadiyad ay u soo direen walaalahooga Soomaaliyeed ee ay saameeyeen daadadka maaragtaan daay waxa maanta ina soo gaadhay sidii aan shalay sheegnayba diyaaradii siday qalabka caafimaad iyo agabka loogu talagalay in dadka si dhaqso ah loogu gurmado waa diyaaradii labaad ee sida gargaar oo dawladda aan walaalahanahay ee Jabuuti ay u soo dirtay Soomaaliya waxaana maanta ay keentay teendhooyin si ay hoy uga sameystaan dadkii ka barakacay guryahooda oo ay saameeyeen fatahaadaha webiyada safiirka dawladda Jabuuti ee Soomaaliya aadan xasan aadan oo mar kale ku wareejiyay guddiga qaran ee fatahaadaha ayaa sidoo kale wadamada saaxiibada dawladda Soomaaliya uga baaqay in ay doorkooda ka qaataan sidii loo caawin lahaa isla markaana loo sameeyo bixin lahaa dadkii ay saameeyeen fatahaadaha webiyada waxa sharaf nooc mar kale inaan maaragtaan madaarka Muqdisho ku qaabilno diyaaradii labaad ka timid Jabuuti oo si maaragtaan gurmadkii dawladda Jabuuti iyo shacabka Jabuuti ay ku ballan qaadeen diyaaradana sidii diyaaradii hore waxay sidaa qalab gurmad laakiin markan waa teendhooyin kaliya oo teendhooyin kala waaweyn waa 15 tan waxa ay sido laakiin waa teendhooyin kaliya ayay tan sidaa waana diyaaradii labaad ay soo gaadha waxaan mar kale rajaynaynaa maaragtaan walaalahayaga Soomaaliyeed dawladaan iyo shacab ahaanba maaragtaan guulayaan u rajaynaynaa gargaaradaasi waxay ahaayeen kuwa ay walaalahooda ah dawladda Jabuuti iyo shacabkoodu isku tiirsanay ay ku tarayeen ummad Soomaaliyeed oo dhibaato la soo daristay dhanka kale suurtagalnimada amaan dhameystiran oo ummadda Soomaaliyeed ku noolaato waxay dawladda Jabuuti marar kala duwan tababar iyo taakulan dhinaca ciidamada ahba u fidisay booliska iyo saraakiisha ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka ee Soomaaliya kani waa dugsiga tababarka ciidanka booliska qaranka Jabuuti ee Idris Faarac Cabani oo ciidamada Soomaaliya ay ku qaadanayeen tababarka calamadan babanaaye waa kuwa jamhuuriyadda Jabuuti Soomaaliya Talyaaniga iyo midowga Afrika
muuqaalkan hortiinnu waa taliyaha ciidanka booliiska qaranka Jabuuti gaashaanla sare Cabdilaahi Cabdi Faarax oo ay hareera socdaan saraakiil ka socda midowga Afrika Talyaaniga iyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna salaanta calamada afarta ka qaadanayaan cutubiyada goobta ku sugan ciidamada booliiska qaranka Soomaaliya ee dugsiga Idris Faarax Cabane ku qaadanayay tababarka wuxuu ahaa tababarkoodu mid qaybo kala duwan leh waxaana kamida leeshanka dagaalka iyo toogta sida muuqaalkan hortiina aad ka arkayseen oo ay had iyo habeen baheegan u hayeen inay baraan saraakiil kala duwan oo ka socda Talyaaniga midowga Afrika Djibouti iyo saraakiisha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo iyaguna la socday tababarka sawirkani waa goobta ay ku baranayeen leeshanka dagaalka
hoolkan ama qolkan weyni waxay ku qaadanayeen casharrada kala duwan ee qoraalka oo ay mar walba ku baranayeen tababarrada joogtada ah ee ay dugsiga ku qaadanayeen muuqaalkani waxa uu ka mid yahay sida loo badbaadiyo haddii mas-uuliyiin ay qabsato qalalaaso iyo rabshado ama mas-uul sare ay halis galaan oo la badbaadinayo waana casharrada iyo tababarrada muhiimka u ahaa lafdhabarta aqoonta ay kororsanayeen ciidanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mas-uul sare ayaa soo degaya waxa uuna ka hortegayaa dad wada dibadbax cabashooyin kala duwan leh kadibna dadka ayaa waxay halis gelinayaan mas-uulka habkeesa loo badbaadinayaa tababarrada joogtada ah ee ciidanka booliiska qaranka Soomaaliya ay baranayeen waxaa ka mid ah ka hortagga rabshadaha iyo mudaharaadyada waana kan iyagoo soo bandhigaya habkii ay tababarka u qaateen waxaan iyana la hilmaami karin doorka ay la dagaalanka cadawga ummadda Soomaaliyeed kula jiraan ciidamada hiil walaal oo dhiigooda iyo nafahooda u huraya sidii ay walaalahooda Soomaaliyeed uga dhicin lahaayeen cadawga caadaystay dhiigooda inkastoo haddaba aynaan halkan ku soo koobi karin walaaltinimada iyo wax isku haanshaha shacabka Djibouti iyo ummadda Soomaaliyeed oo aynaan ka dhamaanayn waxtarka Djibouti ee walaalahooda Soomaaliya ay mar walba la soo barbar taagneed oo ahaa mid soo jireena isla markaana guyaal badan sii jiri doona waxtarka ummadda Djibouti-na yahay mid ku dhisan isir wadaag iyo ood wadaag ay mar walba la barbar taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed maxaa loo macnaysan karaa hadalladan siyaasiga ah ee ka soo yeedhay mas'uulkan ka tirsan xukuumadda dawladda federaalka ee Soomaaliya durbaanada kala fogeynta iyo isku dirka ah ee daboolka ka qaaday wasiir Dube waa kuwa salkoodu yahay sidii loo kala fogeyn lahaa shacabka xiriirta ee ku midaysan walaalnimada magaca Soomaaliyeed oo ay ood wadaag ku yihiin siyaasiyiinta bulshada kala duwan ee fikirkoodu caafimaadka qabo isla markaana ka warqaba xidhiidhka walaaltinimo ee ka dhaxeeya labadaasi dal ayaa iyagu aragtidan ku sababeeyay inay tahay mid meel ka dhaca isla markaana ka hor imanaysa walaaltinimadii soo jireenka ahayd ee ay shacabka dawladda Djibouti mar walba la barbar taagnaayeen walaalahooda Soomaaliyeed shirkii ugu dambeeyay igad ee lagu qabtay Djibouti Soomaaliya waxay geyshay cabasho ay ka cabanayso Kenya inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya shirkaasi waxa ka soo baxay in guddi laga magacaabo xaqiiq raadina waxa oday looga dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle sida nidaamku ururadu yihiin Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu magacaabay guddi ka kooban 6 qof ilaa 7 qof waxaan u maleynayaa 7 qof hadaan qaldanayn guddigaasi markay hawsha loo dhiibo inay ka soo warbixiyaan reer Djibouti maaha hadday reer Uganda yihiin reer Uganda maaha hadday reer Carab yihiin Carab maaha ururka shaqada u diray ayay hawshooda qabanayaan iyagaana u report gareynayaan guddiga waa hawlgashay magaca ururka igaad bay ku hawlgashay xubnuhu way u badan karaan wadan aan badal Djibouti way u badan yihiin xubnuhu laakiin cid ka amar qaadanayaan iyo cid ay u warbixinta u report garanayaan u gudbinayaan labaduba waxa weeyaan madaxda urur goboleedka igad oo Suudaan ka madax tahay imanka warbixintii soo saareen waxaan ka soo qaadayaa 2 qodob oo nuxurkooda u waaweyn faragelinta ay ku dacwoonayso Soomaaliya inaanay siday u sheegeen aanay u jirin amba dacwad urur goboleedka igad la dhex keeno aanay istaahilin qodobka kale muhiimka ay soo saareen waxa weeye nuxurkaynu ka raacayna dawladda Soomaaliya
cilaaqaadka ay u goysay kenya inay ku degdegtay oo wixii laba dowladood ay xidhiidhka ku kala goosan jireen inaanay meesha ka dhicin dowladuhu dhibaato intaa ka badan iyagoo isku qaba xataa qaarkoodkii oo dagaal ka dhex socda kuma degdegaan inay xidhiidhka kala goostaan laakiin soomaaliya yani may hayn yani afka ka dhowri maayee yani diblomaasiyad caruureed bay ciyaareen oo aan ahayn aan mas-uuliyad badani ku jirin soomaaliya way saluugtay warbixintii way saluugi kartaa way ka hadli kartaa laakiin waxaa la yaab leh soomaaliya markii ay muxuu ahaayey ay heshiiskan ay diiday waxay cambaaraysay jabuuti iyo madaxweynaha jabuuti waxay isku khaldeen jabuuti iyo igad jabuuti mas-uulka ma aha warbixintan ay soo saareen guddigu ismaaciil gumar geelana mas-uulka ma aha hadday cid u cabanayaan amba cid dhaliilayaan amba ku cambaareynayaan ururka igad ha cambaareeyaan muxuu ahaayey waxay ka cabanayaan cabashadooda ha u gudbiyaan ururka igad hadday leeyihin reer jabuuti ay u badnaayeen no matter ha u bataan weligoodba xatay soomaaliya ha wada noqdaan waxay ku hawlgelayaan waa magaca ururka igad mas-uuliyadda ururka igad marka soomaaliya wallaahi waxaan u soo jeedin lahaa inay inuu arrinkaasi habu yahay oo jabuuti ay iskaga khaldameen iyo ururka igad haddii ay ku doodiso soomaaliya ninka madaxda ka ah guddigan xaqiiq raadinta amba xubno reer jabuutiya ayaa ku jira wixii qaladee ka dhaca masalan jamciyadda qormaha ka dhexaysa riboortkii soo saarto waxaa sekretariga guud waa antonio guteres baa layidhaha hadday soomaaliya dhaliilayso qaraar ka soo baxay jamciyadda qormaha ka dhexaysa ma waddanka bortugiiska ayay u qabsanaysaa mise waa arrin ay leedahay jamciyadda qormaha ka dhexaysa sidaasoo kale weeye markaa ninka u hadlayey soomaaliya ee wasaaradda warfaafintu runtii si siyaasiya uma hadlay marka hadalkiisa la dhadhansado waayo dee iskumuu qaldeen diblomaasiyadda sida hadduu ugu aqoon yar yahay aqoon u leeyahay yani qaladaad ka yimid ururka igad hadday qaldameenba umu xambaariyeen muxuu ahay jabuuti
markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararkii u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso